dhalinyarada inta badan waxa ugu culus ku dhaca waxa ka mid ah inuu noqdo imacada mataqaan sawir waxay tiraahdaa dameeridaan raaca mataqaan daan iska socda daanku waa dadkii biyaha doonanayay ayaa dameera ku soo baxaa iska daba galaa ma oga meesha ku socdaan laakiin way raacaan inaad cid walba waxay rabto iska raacda sax maaha waa inaad xaqaa'iqda ogaataa tacaabirta qosol kale laga sheego ninkii gandhi la odhan jiray baan idiin sheegaya gandhi waa maqashan soo maa indiya ninkii xornimadeeda raggii wax ka raadacaynaya gandhi wuxuu ahaa nin dhaqankiisa ku adag laba go-oo yaryaroo cadcad buu xidhan jiray oo go-a hoose inta la duuduubo baa dabada la soo gelaya xagga dambe dabagelis buu lahaa xataa waxay yidhahdaan markuu galbeedka ingiriiska u imanaya shirarkii la gelayay riduu soo kaxaysan jiray ridiisa caanaheedu maali jiray wuxuudaba ma cuni jirin gandhi baa yimi bay yidhaahdeen gandhi baa markaa oday ingiriis wuxuu ku yidhi waristis isagoo sheegaya maradan dabada ugu jirtay dabageliska gandhi waxay yidhahdaan kii gaalka ahaa isagana intuu taayigiisii qabtay ayuu ku yidhi waristis gaalkii wuxuu yidhi baa la yidhi this is necktie يعني وابعض الوقت نروح له necktie and this is back tie بيقول يعني كان بيروح الماضي إذا الناس كان باكو حدان أنا دمنا كو حدا يقول ومرة ولا بدين وقفتش كسم ما تصل يعني وقت الماضي يعني necktie يقول أنا كفي يعني back tie معناه هذا ما حي tie culture هذا إن اللقاء كلجر قروح بدني إن القص الصومالي يردق الصوماليات لاغي وأخر قفام it's your back time أفهم تنبين هكفاني لما تاهي هكفاني قف مسلم أو الصوماليات باقاي وكلجر كيسي يدغل كيسي يدي